qaybtan waxaan ku baranaynaa sida loo qoro program Java ah oo magaciisa la yiraahdo Hello World inagoo isticmaalayna command line interface-ka. Hello World programku wuxuu ka kooban yahay hal class oo shaqadiisu tahay in uu screen-ka ku soo qoro Hello World oo keliya. Programka Hello World wuxuu u muuqdaa in uusan wax badan qabanayn, run ahaantiina ma qabanayo wax badan, hase yeeshee wuxuu marayaa marxaladihii iyo tallaabooyinkii uu mari lahaa program Java ah oo aad u heer sarreeya. Waxaan horay u soo baranay marka programmerku dhisayo program Java ah in uu 3 tallaabo qaado si programku hawshii loogu talagalay u qabto. 3dan tallaabo waxay kala yihiin write the program iyadoo la adeegsanayo text editor, iyo tan labaad oo ah compile the program iyadoo la adeegsanayo Java compiler, iyo tan saddexaad oo ah execute ama run the program iyadoo la adeegsanayo Java interpreter. Haddaba ujeedada Hello World programka aan u qori doono waxay tahay in aan aragno sida tallaabooyinkan loo fuliyo. Waxaan qaadaynaa tallaabada ugu horeysa oo ah write the program. Waxaan isticmaali doonaa text editor la yiraahdo Notepad oo la yimaada Windowska. Aan furna Notepad-ka, start ku dhufo, program files, accessories, Notepad. Waxaan hadda abuuraynaa file Java ah oo aan ku magacaabi doono helloworld.java. Si aan u save garayna faylka, waxaan tagaynaa file, kadibna waxaan ku dhufanaynaa save. Waxaan marka hore dooranayaa directory-ga aan ku save garaynayo faylka oo ah new folder oo saaran desktop-kayga. Kadibna file name horteeda waxaan ku qorayaa magaca faylka oo ah helloworld.java. Kadib save as type-ka waxaan ka dooranayaa all files. Xasuusna waa muhiim in aan dooranno all files, haddii kale faylku ma noqonayo Java file, wuxuu noqonayaa text file. Ugu dambeyntii waxaan ku dhufanaynaa batoonka save. Waxaan hadda abuurnay file Java ah oo aysan ku jirin wax code ah. Faylkan Java-ga ah waxaan gelin karnaa classyo aad u fara badan, balse waxaa waajib ah in mid ka mid ah classyadan ay isku magac noqdaan faylka. Classka magaciisana laga hormariyo keywordka public. Waxaan hadda qoraynaa hal class oo ay faylka isku magac yihiin. Marka aan qeexayno ama aan declare garaynayno classka waxaan qoraynaa sidan public class hello world. Waxaan furaynaa curly brace, kadibna waxaan xiraynaa curly brace-ka. Waa muhiim in aad isbarbar dhigtaa classka magaciisa iyo faylka magaciisa. Waa in ay labada magac wax kasta iskaga mid noqdaan. Haddii xataa ay hal xaraf ku kala duwan yihiin, ogow faylku ma compile garaysmayo. Hadda waxaan qeexnay class magaciisa la yiraahdo Hello World oo ku jira file magaciisa la yiraahdo Hello World. Classka xuduudiisu waxay ka bilaabanaysaa curly brace-kan dhanka midig u jeeda waxayna ku dhammaanaysaa curly brace-kan dhanka bidix u jeeda. Codeka classkana waxaana la ka doonayaa in aan gelino labadan curly brace dhexdooda. Waxaan hadda qeexaynaa method magaceeda la yiraahdo main. Public static void main string args methodkan waa method qiimo gooniya u leh Java interpreter-ga ama JVM-ka. JVM-ku markuu execute garaynayo programka waa markuu turjumayee wuxuu ka bilaabaa hal meel, meeshaasna waxaa la yiraahdaa main method, waana halkan.
erayada main methodku ka kooban tahay mid mid uma turjumi doono, balse waxaad u fahantaa laynkan oo dhan in uu yahay qeexidii ama declarationkii main methodka si JVM-ka u garto meesha uu ka bilaabayo executionka. main methodku iyaduna waxay leedahay xuduud u gaar ah, waxayna xuduudeedu ka bilaabanaysaa halkan waxayna ku dhammaanaysaa halkan. haddaba codeka aan qorayna waxaan gelinaynaa labadan curly brace dhexdooda. waxaan hadda gelinaynaa halkan codekii screenka ku soo qori lahaa hello world, waana codekan system.out.println open hello world ma sharaxayna qaybaha ay ka kooban tahay statementigan sababtoo ah ma ahan wax fudud oo uu fahmi karo qof ku cusub programmingka. waxaad u fahantaa statementigan in uu yahay line code ah oo screenka ku soo qora wixii la geliyo labadan quote dhexdooda. tusaale ahaan haddii aad magacaaga gelisid labadan quote dhexdooda, wuxuu programku soo qorayaa magacaaga halkii uu ka soo qorayay markii hore hello world. halkaa waxaa noogu dhammaaday tallaabadii koowaad ee ahayd write the program. marka waa in aan save garaynaa faylka javaga ah ee aan qornay. waan iska xirayaa programka sababtoo ah tallaabadii qoraalka way noo dhammaatay. waxaan hadda qaadaynaa tallaabadii ku xigtay oo ahayd compile the program innagoo adeegsanayna toolka ama commandka loo yaqaano Java compiler. waxaan furaynaa command promptiga ama dooska. haddii aan doonayno in aan compile garayno file Java ah, waxaa wanaagsan oo dhib yar in aan tagnaa directoryga uu faylkaas ku jiro kadibna aan compile garaynaa. haddaba aan tagna directorygii magaciisu ahaa new folder ee aan ku save garaynay faylkii helloworld.java. waxaan isticmaalaynaa dos commandka magaciisa la yiraahdo cd oo loo soo gaabshay change directory. commandkan ma ahan command Java ah ee waa command programkan la yiraahdo command prompt ama dos uu fahmo oo noo ogolaanaya in aan iskaga kala gooshno directoryada. desktop cd new folder. haddii aad doonaysid in aad baratid sida dooska loo isticmaalo, waxaad ka baran kartaa isagoo af Soomaali ku turjuman website-ka www.somalisoftware.com. inta aanan compile garaynta bilaabin, marka hore aan furno directoryga uu ku jiro faylka helloworld.java innagoo isticmaalayna Windows Explorer-ga si aan u aragno marka aan faylka helloworld.java compile garayno waxa dhaca. si aan faylka helloworld.java u compile garayno waa in aan qornaa magaca commandka oo ah java c, kadibna aan raacinaa faylka magaciisa oo ah helloworld.java innagoo magaca commandka iyo magaca faylka u dhaxaysiinayna space. waa muhiim in aadan ka tagin extensionka faylka oo ah .java isla markaana uu ahaado extensionku lowercase ama farta yaryar. inta aanan ku dhufan batoonka enter si aan u compile garayno, aan marka hore eegno directoryga new folder waxa ku jira. sida aad aragtaan waxa ku jira source filekii ahaa helloworld.java. haddii wax cilada aysan dhicin marka aan compile garayno, waxaan filaynaa in aan aragno fayl kale oo faylkan ku magaca balse extensionkiisu uu yahay .class. haddaba aan ku noqono command promptigii oo aan ku dhufano batoonka enter. wax fariin ah ama error aan nooma soo bixin. haddaba aan halkan tagno oo aan eegno
sida aad aragtaan waxaa hadda aragnaa hello world.class. tan macnaheedu waxa weeye programkayagii wuu compile garaysmay. xasuusnaaw faylkan hello world.java waxaa ku jira source code, kan kale ee isaguna ah hello world.class waxaa ku jira bytecode. halkaa waxaa noogu dhammaaday tallaabadii labaad ee uu programmerku qaado oo ahayd compile the program. tallaabada ugu dambaysa aan qaadayna waxa weeye execute the program innagoo isticmaalayna JVM-ka. xasuusnaaw JVM-ka iyo interpreterku waa isku mid. tallaabadani waa tallaabada ugu fudud, welina waxaan joognaa directorygii new folder. haddaba si aan u execute garayno faylka hello world waxaan halkan ku qoraynaa java hello world. xasuusnaaw faylka magaciisa ma aanan raacin extensionkii sida hello world.java ama hello world.class. marka aan batoonka enter ku dhufto waxaan filayaa in ay ii soo qoranto fariintii oranaysay hello world. haddaba aan ku dhufto batoonka enter. sida aad aragtaanba halkan waxaa ku soo qormay hello world. qoraalkii aan doonaynay in aan aragnana waa qoraalkan. horey baan idinkugu sheegay in programka hello world uusan wax badan qabanayn, balse tallaabooyinka la marayo ayaa noo muhiimsanaa. waxaad aragtay sida loo qoro, loo compile gareeyo, loona execute gareeyo program java ah iyadoo la isticmaalayo command line interface. halkaas ayuu ku eg yahay cashirkan qaybtiisii ku saabsanayd writing java program with command line interface. cashirka ku xiga waxaan ku baran doonaa haddii ilaahay yidhaahdo sida loo qoro java program iyadoo la isticmaalayo eclipse.